ciidamo xooggan oo ka tirsan beesha ciise ayaa goordhow waxay buux dhaafiyeen bannaanka magaalada saylac guud ahaanba salaadiintii cuqaashii waxgaradkii iyo odayaashii dhaqanka beesha ciise ayaa laga saaray magaalada saylac waxayna wararku tilmaamayaan cabsi laga qabo weerar halkaasi ka dhaca waxaan kuu soo gudbin doonaa jabhado hubaysan oo ka dilaacay gobolka Awdal iyo xaaladda oo faraha ka sii baxaysa sidoo kale waxaan kuu soo gudbin doonaa kulan degdeg ah oo ay xalay yeesheen qaar ka mid ah saraakiisha ciidanka maamulka waqooyi bari iyo madaxweyne ku-xigeenka waqooyi bari abwaan cabdirashiid jibriil haddaba maxaa kulanka looga hadlay maxaase lagu falanqeeyey go'aamo dagaal oo ay gaareen waqooyi bari ayaan xogtooda idiin hayaa sidoo kale waxaan idiin soo gudbin doonaa xaaladda wararkii ugu dambeeyey dhaqdhaqaaqyo xooggan oo laga dareemayo aagga tuulada Shimbiraale oo ka tirsan gobolka Sanaag iyo ciidanka beesha Warsangeli oo raba inay ceergaabo difaacaan qodobadaas iyo waxyaabihii kale nagu soo kordha ayaan saaxiib yaal idiin faahfaahin doonaa ee soo dhawaada waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daawacnay ee subax wanaagsan daawade qodobkeena ugu horeeya ayaan daawadayaal ku bilaabayaa sida ay tilmaamayaan wararka iyo macluumaadka aan saaka ka heleyno qaybo ka mid ah gobolka Awdal 48 saac la soo dhaafay salaadiinta cuqaasha iyo waxgaradka beesha ciise kuwooda mugga iyo miisaanka leh ayaa laga saaray magaalada Saylac haddaba waxa soo baxaya in ciidamo hubaysan oo ka tirsan Somaliland iyo sidoo kale ciidanka beesha Gudubirsi ay rabaan inay weeraraan magaalada Saylac iyagoo oo diidan in xeerka buugga ciise halka lagu soo bandhigo haddaba si aad xogta iyo shaxda u ogaatid bal wax yar aan dib ku xasuusiyo xaaladda Saylac iyo wararkii ugu dambeeyay xili dambe hotel ku yaala gudaha magaalada Saylac waxaa damcay inay shir ku yeeshaan qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka beesha ciise waxaana la sheegay in is-horistaag lagu sameeyey oo laga diiday inay shirkaasi qabsadaan ajandaha ugu weyn ee shirku wuxuu ahaa sidii loo dardargelin lahaa loona soo bandhigi lahaa xafladda ku saabsan buugga xeerka ciise kaasi oo la sheegay in si weyn Somaliland ay u diidan tahay iyadoo ka cabsi qabta rabshada halkaasi ka dhaca odayaasha waxaa loo sheegay markii ay hotelka galeen inay si degdeg ah uga baxaan haddii kale tallaabooyin laga qaadi doono taas ayaa la sheegay inay kaliftay in odayaasha si degdeg ah ay uga baxaan halkaasi markii dambena la geeyey bannaanka magaalada laakiin arrinkaasi waxaa si weyn uga carooday jabhadaha hubaysan ee beesha ciise kuwaasoo sheegay inay weerarayaan ciidanka Somaliland ee ku sugan gudaha magaalada Saylac khubarada arrimaha la socotaahi waxay leeyihiin waa dharbaaxadii ugu cusleed oo ku dhacda mar kale beesha ciise oo loo diidan yahay inay soo bandhigaan xeerka buugga ciise dadka arrimahan rogrogana waxay leeyihiin tani waa inay si degdeg ah xal looga gaaro iyadoo oo aan la iska indhatirin xaqiiqooyinka jira beesha ciise tiro dhowr jeer waxaa la sheegay inay buuxiyeen ama ay dabooleen daldaloolo badan iyo duleysyo ay Somaliland ka doonayso beesha laakiin hadda waxaa la sheegay inay beeshu saraakiishooda ciidamadooda cuqaashooda waxgaradkooda ay hal meel isku raaceen kaasi oo ah in si degdeg ah looga jawaabo ficil walba oo ka imaan kara dhinaca maamulka Somaliland xogaha iyo macluumaadka kale oo aan helayno waxay tilmaamayaan in dhowrkii saac la soo dhaafay sidaas oo kale si weyn loo dareemay ammaanka in magaalada si weyn loo adkeynayo iyada oo faahfaahinta iyo macluumaadka aan helaynana ay tilmaamayaan in laga cabsi qabo weeraro ka dhaca magaalada Saylac iyo deegaanada hoos yimaada saraakiisha aan la hadalnay waxay inta hadalkooda ku dareen in dhowrkii maalin ee la soo dhaafay si weyn loo adkeeyay amniga Saylac iyo deegaanada hoos yimaada arrintaasna waxaa sabab looga dhigay markii la helay xog muujinaysa in laga cabsi qabo weeraro ka dhaca magaalada oo ay geystaan ciidanka beesha Gudubirsi haddii xaaladdu sidan ay ku sii socoto dad badan waxay aaminsan yihiin in ay xaaladdu tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin sababtoo ah faahfaahinta xogta waxay tilmaamaysaa in dhowrkii saac la soo dhaafay ay jireen xogaha la xiriira in isku dhacyo ciidan laga cabsi qaba inay ka dhacaan gudaha iyo bannaanka magaalada Saylac ilaa hadda xal looma helin khilaafkii ka dhashay xeerka buugga ciise iyo mudaharaadyadii ka dhacay magaalada Boorama laakiin khubarada aan la hadalnay qaarkood waxay tilmaameen in ay xaajadu fududahay oo xal loo heli karo dhammaan waxyaabaha la isku hayo dhinacyada beesha ciise iyo Gudubirsina waxaa loogu baaqay in ay jawiga dejiyaan oo ay xaaladda nabad ku soo dabaalaan
xaqiiqooyinka wararka kale oo aan helayna ayaa waxay tilmaamayaan in toddobaadyadii lasoo dhaafay sidaas oo kale ay jireen faahfaahinta macluumaadyo buuxe oo la xidhiira in xaaladdu ay tegi doonto meel aan waxba laga qaban karin haddii aan si degdeg ah xal loogu helin qodobadii lagu heshiiyey. waxay ku soo kordha saaxiibayaal hadba xaaladdu sidai isku rogrogto iyo xog walba oo ku saabsan waxaan idinkugu soo tabin doonaa wararkeena dambe haddii Allah awoodda leh u raali ka noqdo. markana qodobadeena kale ayaynu eegaynaaye ciidanka Somaliland gaar ahaan militariga ayaa lagu daabulayaa xadka ay wadaagaan Djibouti iyo sidoo kale Somaliland aaga magaalada Lughaye ilaa iyo tuulada Ceelgaal. xogaha la helayaa waxay tilmaamayaan in laga cabsi qabo in ay dhacaan isku horimaadyo u dhaxeeya beelaha Gudubirsi iyo Ciise. xogahan helayno sidoo kale waxay tilmaamayaan in toddobaadyadii lasoo dhaafay halkaasi si weyn looga dareemay dhaqdhaqaaqyada ciidan, waxaana xubnaha saraakiisha ee Somaliland oo la hadalnay ay tilmaameen in laga cabsi qabo in dagaal halkaasi ay ka dhacaan isla markaana xaajadu ay tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin. laba sargaal oo ka mid ah saraakiisha ugu sarsareysa ciidanka beesha Ciise waxay tilmaameen Somaliland inay markan garab istaag u muujinayso beesha Gudubirsi, Ciisahana looga baahan yahay inay midoobaan oo ay hub ku taageeraan beesha. dabcan Ciisuhu waxay deegaano fara badan oo ku yaala meelo ka mid ah gobolka, waxaase hadda laga cabsi qabaa haddii aan xal loo helin xaajada hadda taagan inay xaaladdu faraha ka bixi doonto oo ay tagi doonto meel aan waxba laga qaban karin. laakiin xubnaha kale ee saraakiisha qaarkood waxay aaminsan yihiin in xal loo heli karo waxyaabaha la isku hayo oo si dhow looga wada shaqayn karo nabadda iyo xasiloonida halkaasi ka jirta. isku soo wada duubo dad badan oo arrimaha la socda ayaa waxay aaminsan yihiin in Somaliland ay door fiican aysan qaadanin kolkan, loogana baahan yahay Somaliland in caqligu uu shaqeeyo oo la iska indhatirin xaajooyinka iyo cidda dulmiga wada oo gacanta la qabto haddii ay diidaanna gacan bir ah lagu dhigi doono. laakiin dad kale oo arrimaha la socda sidoo kale waxay leeyihiin waa haddii xaajadu sidan ay ku sii socoto wax badan ayaa isbedeli doona, dhiig badan ayaana ku daadan doona gobolka, sidaas lamidana xaajadu waxay tagi doontaa meel aan waxba laga qaban karin. laakiin xaaladdu hadda inta ay degan tahay oo wax walba xaliskooda hadda la heli karo waa in si degdeg ah xal looga gaaro oo la soo gabagabeeyo wax walba oo caqabad ah oo la isleeyahay xaajada waa ay ka sii dari kartaa ama meel kale ayay tegi doontaa. waynu arki doonaa saaxiibayaal, laakiin hadda siday wax u socdaan markaad eegtid dabcan waxaa kuu muuqanaya doldoleelo badan oo dhinac walba ah. qodobkeena ugu dambeeyana wuxuu noqonayaa magaalada Laascanood waxaa xalay xilli dambe ka dhacay kulan degdeg ah oo u dhaxeeyay inta badan saraakiisha ciidanka maamulka Waqooyi Bari iyo madaxweyne ku-xigeenka Waqooyi Bari Abaan Cabdirashiid Jibriil. kulanka waxaa la sheegay in bahda warbaahintu ay dibajoog ka ahayd iyada oo kulanka diiradda lagu saaray sida ay xogaha iyo wararku tilmaamayaan in si degdeg ah looga jawaabo ficilada iyo dhacdooyinka ka imaanaya dhinaca Somaliland. ciidankii ku sugnaa ama joogay godka Goojacade ama taliska Goojacade ayaa isbedel lagu sameeyay, waxaana tababar loo xiray kuwa kalena loo furay cutubyo ka mid noqonaya ciidanka Waqooyi Bari, kuwaas oo la sheegay in bilaha soo aadan ay ka qayb qaadan doonaan difaaca maamulka saldhigiisu yahay magaalada Laascanood. saraakiil sarsare qaarkood oo aan la hadlay waxay ii sheegeen in toddobaadyadii lasoo dhaafay sidaas oo kale ay jireen aragtiyo la xiriira in isku dhacyo ciidan la arki karo haddii aan xal degdeg la helin. maamulka Waqooyi Bari hadda wuxuu ku jiraa heegankii ugu sarreeyay, waxaana xogaha la helayaa ay tilmaamayaan in tababarro loo furay cutubyo ka tirsan ciidanka Waqooyi Bari, kuwa kalena loo xiray, taasoo dabcan loo sababeynaya inay tahay arrimo la xiriira maamulka iyo weeraro lagu soo yahay haddii aan xal degdeg ah la helin. isku soo wada duub oo xaaladaha halka ka taagan ayay dad badan aaminsan yihiin in xaajooyinkooda la gudagali karo, laakiin marka hore ay ka horeyso in si dabacsan loo wajaho xaaladaha halkaasi ka jira oo ay dad badan aaminsan yihiin in xalkoodu uu dhow yahay haddii si daacadaha looga wada hadlo qodobada la isku hayo oo ay ugu weyn tahay arrinta dhismaha maamulka Waqooyi Bari oo Somaliland markan iyadu ay diidan tahay. guud ahaan saaxiibayaal wararkeena intaas ay ku dhan yihiin. hadday tahay markii kuugu horeysay ku soo biiri Daraja Media, waxaad heli doontaa dhammaan wararka iyo warbixinada xasaasiga ah oo mar walba halkan aan ku daabacnay ee soo dhawow daawade
subax wanaagsan muuqaalkana inuu la gare boggonna subscribe dheh